السلام عليكم أصحابتي شرفت لي لما أنت بدي سلامة قولي يقول ما ليلتك وقع شيء تذكري إلى جوج من أنت الأبار واسكرب كلام على اليسار إن شاء الله قولي يقول ما إذا لي أصحابتي رم لا أنت الأبار وفي ملكيات إن شاء الله بإذن الله الكريم ما كمل غار وصار كدون غارنا إن شاء الله لما أنت والله يالو هرقيسوا حكى على بلاص فيهن dad waxa la arki jiray dhaho maxay heedeen banaanka laga dafay ilmo guriyihii inta jiingadihii la jaro la baxay maaday balaas la fiirin wax yar jir da'diisa lagu sheegay ayaa habeennimadii xalay laga xaday gurigan iga dambeeya oo ku yaala xaafadda Xeero ee magaalada Hargeysa waalidiinta iyo ehelka ilmahaas xalay la xaday ayaan wax ka weydiinayaa bal sida ay dhacdadu u dhacday ilmaha yar waynu arkaynaa sandaqada waa taa waxaynu arki jirnay tuug sandaqadu soo dhaca oo xada maacuunka yaal ama moobil ama lacag doonaya ama shandad wax ka duwan baynu aragnay way nagu cusub dhacda cusuba halkaas sandaqada waynu arki doonaa waxa bannaan daaqad maqas baa lagu gooyay deetana raadkiisa ka mina subaxdii hore waynu aragnay laba nin baa meesha galay كسرتن واتشينجت ما قصبا لو جوين كره halkaas laga soo bilaabay waa la dilaaciyay daaqada waa la saaray almaana ruux halkan mari kara way yar tahay sidana la ruuxa soobreeshku waxa leeyahay horu albaabka u arkay halkaas gacanta ka galay albaabkii waa la furi karaa halkaas ka gaaray caruurtii iyo reerkii halkaas wada hurdeen haday hurdeen qolalka waa la galay qol ay laba caruur hurdeen ayaa mid la qaatay inta mumtaas maxamed xasan waa la qaatay waalidka waxa toosay waagu markuu bariyay salaadii subax baa la toosay waxa la arkay albaabka furan deetana sidii loo caadiga ahay waxa loo qaatay in la xaday guriga xadnii way ka weynaato caruurtii baa qaar la waayay wax kale alaabo la qaaday iyo waxa waxba kama jiraan mid caruurtii baa la waayay dhibtu waa tasraa u dhacday waa dhacday nagu cusub waa tu'aad iyo aad u baahan in cid kasta ay ka hawl gasho oo maanta codka iyo sawirka arkaysa oo Somaliland ama Islaama inay ka hawl gasho hawshaas iyada laamaha dawladda waanu wada gudbinay saldhigyada iyo daantaroolada sawirka noocaas waa geynay marka deetana insha Allah iyaguna hawlo badan bay ku jiraan marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu birbiriyo hawsha iyada iyo kuwa noocaas sameynaya in ilaahay dadka soo qabto rabbul caalamiin ayaan ka rajaynaynaa arintaas sidaas u dhacday waana wax argagax leh oo maanta hawsha halka ka dhacday waxaynu arki jiray libaaxda ruux qaadan jiray ma inaan arag dib sidan oo kale inta gurigaagii lagu soo galo caruurtaadii la qaato ma inaan arag hore uma aragano anigoo ciradaalaho intaas soo joogay marka hadda dib kasta way dhacday laakiin tani waa tuuguba waxaan leeyahay dadweynaha fariinta aan u farayo waa arkaysaa sida wax u dhacayaan wada boolis wada military kulli hala wada noqdo saydi meedan waa la soo heli karaa haddii aanu Somaliland ruuxaasi hadduu yahay iyo hadduu ajaanib yahay waa la heli karaa haddii reer Hargeysa iyo ummadda muslimiinta kacaan hala kacaan leeyahay dawlad iyo shacab hala kaco war dheer iyo war gaaban ba hala u dhaqaaqo inta tasawirkeedu waa mumtaas maxamed xasan marka in waalidiinteed hooyadeed iyo aabaheed haatan xagee ku sugan yihiin hooyadeed iyo aabaheed tii ugu horartay ahayd meesha waana iska xanuunsanaysa marka hore xaleeba iyada dhakhtar la geeyay deetana hawsheedu way badan tahay marka waa jiifta halkii ay ku aragtay ku ogaatay bay ku jiifta aabaheedna de markuu cararay sawirkeeda ayuu ka airportka baa naagtiisa kaga nimid ayayda hooyaan dharka nabad iyo caana seexday ee nabad galiya ku seexday ee caruurtii inta jinga qalkii la wadinka arkay qalkii in la tooxay sariirtii ugu dul tagay caruurtii in la waxaan doonayaa la soo qabto ilaahayna ha badbadiyo aamiin dhaha raad iyo cid ilaa haatan loo tuhunsan yahay ma jirta oo la isoolan karo way ilmaha yar way qaadeen oo kale weli imaka cid ma hayno ilaahay idamkiisa ilaahay baa biicin imaka cid alla cidaanu ku sheegno ma garanayno laakiin waxa weeyaan in dadka la baaro oo guryahan ku dhadhawey geedalkee maran in la baaraanu doonaynaa axmed maxamuud yuusuf gobol dhamaanay asxaabay ka warama sheekada Soomaaliya hadda ka socota hadda waa Hargeysa meesha arrinta ka dhacday Soomaaliya ilmihiina ogaada walmihiina ogaada warindaha shita waa naloo soo dhigtay dadkeen waa loo soo dhigtay meel walba joogno Soomaaliya dayaceen iyo darxumadeena la arkay ilmaha la ilaasho warindaha fura Soomaaliya war iska jiro dadaal dheeraad samay Soomaaliya kulliyo gobonimo ay leeyahay dhamaantiin asxaabta igu xiran oo dhan waa la ogaado dadka hala kacdaa mi videogan dadka loo deeleeyo dadka waxaan ogeyn oo wixii ogba haloo deeleeyo dadka waxaan yiri halo ogeysiyo allayey war hala is ilaaliyo meel waa loo soo dhigay ma jiingad inta la jaray
ilmo lagala baxa intee lagu arka ilaahay hana badbaadiyo hana badbaadiyo allah hana badbaadiyo allah hana badbaadiyo gabadhaas inay nooshay inay dhimatay lama oga ilaahay hana badbaadiyo laakiin Soomaaliya indhaha fura meel walba Soomaaliya joogtiin indhaha fura insha Allah guliyo gobonimo idin leeyahay dhamaantiin taxadar dheeraad ah la sameeyo Soomaaliya taxadar dheeraad ah la sameeyo insha Allah biidnillaahi kariim ilaahay cidaas ha u soo gabadhooda ha u soo fiyo oo u duceynaa insha Allah guliyo gobonimo idin rajeeyna insha Allah wallahu hooyadii maanta ay ka maqantay gabadheeda ayaa maanta libana ilaahay oo habartaas oo aabahaas iyo hooyadaas ilaahay qalbiga u dejiyo laakiin indhaha la furo Soomaaliyeed meel yawmal qiyaamaha lagu jira indhaha la furo insha Allah biidnillaahi kariim